waxaa rabaa saddex qodob inaan shirkadda ayda ku xuso. marka hore go'aan guddida fulinta xisbiga kulmiye ayaa rabaa inaan halkan idinka soo jeediyo. guddida fulinta xisbiga kulmiye oo shir isugu yimi xalay bisha abriil ay ahayd 9 waxay dood iyo falanqayn ka galeen eedayn sharci jebin oo ka dhan ah gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye oo hore guddida fulinta lagu soo gudbiyey. guddida fulintu kadib markay arkeen xeerarkan nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda xeer lambar 14 oo soo baxay 2012 qodobka labaad farqadda afraad iyo qodobka sagaalaad farqadda shanaad qodobka tobnaad farqadiisa saddexaad iyo qodobka afraad iyo qodobka shan iyo labaatanaad farqadiisa ta. guddida fulintu kadib markay arkeen dastuurka xisbiga kulmiye qodobka 11aad farqadiisa koowaad qodobka 13aad iyo qodobka shan iyo labaatanaad waxay go'aan ku gaadheen in mudane axmed xaaji yuusuf waabeeye gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye uu lumiyey xilkii gudoomiye ku-xigeenimo ee xisbiga, xubinnimadii guddida fulinta, tii golaha dhexe iyo xubinnimadii xisbiga intaba kadib markii uu ku gafay xeerka qaranka iyo dastuurka xisbiga kulmiye ee kor ku xusan. in mudane cabdiraxmaan maxamed talyaanle gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye uu lumiyey xilkii gudoomiye ku-xigeenimo ee xisbiga, xubinnimadii guddida fulinta, tii golaha dhexe iyo xubinnimadii xisbiga intaba kadib markii uu ku gafay xeerka qaranka iyo dastuurka xisbiga kulmiye ee kor ku xusan. dhammaantood labada xardood waxa ay lumiyeen xilkii mas-uuliyaadkii iyo xubinnimadii ay ka hayeen xisbiga kulmiye. waxaan kale waa rabaa inaan xuso xisbiga UCID waa xisbi leh xeerarkiisa iyo qaab-dhismeedkiisa. waa xisbi qaran oo da'weyn kalaamna naga mudan xisbiga kulmiye. muuse biixi waa guddoomiyaha xisbiga kulmiye meel uu ka soo galo xisbiga UCIDna ma ogin hawlna tiisaaba ka badan. UCID waxay isku haysato ha dhammaysato tartan aan xasarad lahaynna ha u soo diyaargaroodo. aflagaadadu uma wanaagsana qof doonaya inuu ummad hogaamiyo. xilligii hanjabaadana waa laga soo gudbay. ciddii wax kala tirsanaysa waxay ku qurux badan tahay inay ku kala baxaan hannaanka sharciga ah. intaas waa waxaan ka yidhi eedeymo baryaanba ka socday xisbiga UCID howlwadeenada ka mid ahaa. waxaan doonayaa inaan qodobka saddexaad kusoo qaato buug lagu tilmaamay waxqabadka xukuumadda. baryahan waxaa baraha bulshada qaarkood lagu arkayey buug tilmaamaya waxqabadka xukuumadda oo galkiisa sare sawirka guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi uu ku yaallo. buugga waxqabadka waxaa soo saaristiisa iska leh xukuumadda, shaqo xisbigu ku leeyahayna ma jirto. waxaana hogaamiye ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed silaanyo iyo adeegayaashiisa u qaabilsan fulinta howlaha. intaanu ka ognahay waa buug daabacaadiisu ciddana gaara kali ay samaysay wax laala xisbigu uu shaqo ku leeyahayna aanay jirin. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya.